magacaygu Sheekh Maxamed Maxamuud Taqal baa la yiraahdaa odaygii alxamdulillah xagga dacwada salafiyada ee Bangal joogaanahay waxa marka laan soo qaadnay macallinkii meesha uu ahaa macallinka iyo aniga oo odayaashii xagga daada iyo diintaba Bangal ku ah inay meesha u baahan tahay masjid ay u baahan tahay haday xagga xaafadda tahay xagga dumarka iyo caruurtii dacwada islaamka haday tahay xagga alxamdulillah magaalada xabaasheedii oo markii muslimiinta ay wax xabaalahayaan oo meel ku tukadaan ay haysay siyaalo badan markii masaajid bay u baahatay masjidkii markii aan dalabnay meelo badan la galgalay wareeg badan la suubiyay wali kuma na guuleysanin masjid nin noo ballan qaada marka waxaan garanay muslimiintu waxa wada ballan qaadayeen laakiin fulintii iyo culeysya iska jiro cid badan aan aad ugu eedeynana malaha marka waxa dhacday banaan weyn oo madrasada jiiraan la ah inaan masjidka ka jeexnay masjid dhererkiisu yahay 50 by 50 oo qaab alxamdulillah tiirarkiisa iyo nidaamkiisana la hagaajiyay madrasadiina ay ka faa'iideysato xaafadii durkaysana ay ka faa'iideysto dadka muslimiinta xabaalaha martida oo maalinka qof dhintana ay ka wada faa'iideystaan codsiga maanta aanu taaganahay waxa waaye masjidka isaga ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala isaga uu wali wax dhameystiran oo loo hayo ma jiro ballanqaadyo iyo wax soo sawira iyo waxna soo socodsiya way iska jiraan marka codsiga anaga waxa waaye masaajidkaas baahi xaafadeed buu qabaa baahi madraso qabaa qof kasta muslima oo ku raashan iyada ama maqlo ama ilaahay dartii subhanahu wa ta'ala wax u taageeri karo codsigaasaan u jeedinaynaa magaalada Bangal waa meel alxamdulillah fiican abaara ka dhacay hadda xogaa roob noo dhacay dacwadeeduna way iska dambaysaa meelii dacwada ay ka hormartay dib ay u dhacday marka qof kasto muslim oo maqlin oo soo degdegona ajiibo yaa rajeynina talabaad madrasadii nafteeda markii la dhisay ilmihii xaafadii la isku yeeray way yartay ee nafteeda waxaan u dalbaynaa waasicin aniga waxa magacayga la yiraahdaa Sheekh Ibrahim Maxamed waxaan ka mid nahay culimada gobolka Tanarifa khaasatan magaalada Bangal waxaan u sheegayaa muslimiinta aniga oo kamid ah culimadii reer Bangal magaaladana joogay muddo 25 sano 28 sano ayadoo hal masaajidna iska dhisnay madrasad muslim ahna ay ku yeelin dadka ay iska ahayeen dad ilaahay xaladooda ugu geey masaajidya ayaan maarata magaalada laga dhisay waxa kamid ah oo hadda aan aad ugu dhibaataysanahay xaafadan hadda in kala hadlayo meesha la afarteeda dhinac meeshaan taaganahay masaajid u dhow ma jira marka masaajidkaas oo aad muslimiinta ay ugu baahan yihiin xaafadan joogo ilaahayna qowlkiisu wuxuu ahay wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan wanaaga iyo alla ka cabsashada iskugu kaalmeynina dambiga iyo waxyaalaha kale oo adduunka aakhira aan dadku waxbu taraynin sida darteed walaalayaal muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanayaa aniga oo culimada chairmankeeda magaalada Bangal waxaan ka codsanaynaa muslimiinta inay masaajidkan dhismadiisa nagu caawiyaan maxaa yeelay waxa la yiri man bana masjidan bana Allahu baytan fil janna ninkii qofkii masaajid dhisa ama wax ku darsada ilaahay guri caalami ah ayuu jannada ugu dhisaa gurigaas caalamiga markii la soo koobay waxa la yiri ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khadara ala qalbi bashar hadii ilaahay gurigiisa aad dhista adduunka ilaahay asagana jannada guriga uu kaaga dhisaya suubanaha ayaa yiri nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi gurigaasna waxa lagu tilmaamay waxa guri ay wiligiis il arkin wanaagu uu qabo dhagna ay maqlin qalbi bini aadan aan ku soo dhicin marka walaalayaal fursadan maanta waxaan rabaa muslimiinta walaalahay shanta qaaradood meel ay joogaanba wadankeenan Kenya iyo wadamaha kaleba inay na soo caawiyaan
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مساجد إلهي وحا عمره لبا صفة يا لو شيء قفك مساجد كديساي أمس قفك مساجد كعمراي هدي بقف مسلم آتاي إلهي ناس وحكسي مساجد كإلهي عمريتان كيس وحاوه الرئيسة مساجد كلستان كيس مركي الله لسه بعد ذلك يا تعمير لهلا تعمير كوه الرئيو أو مساجد كإلهي إن هذا عمرته وحاوه الرئيسة إن هذا لسته تاس أو عاد كفخرينين مركز دمتة مركز نوشهيبة مركز دمتة وحيكون نقونيسا صدقة الجارية dhagaxeed dhigtay ama ismiidkii wax ku dirsatay intii ay joogan sadaqada way ku qulqulaysaa in gurigaada aakhiro qabrigaada qiyaamahaada waxay ku hagaagaysaa inaad ma aragtaa masaajid muslimiinta ay ku dukanayaan aad dhisto oo ilaahayna ma aragtaa adigana gurigaada aakhiro iyo gurigaada adduunka labadaba uu ilaahay ku hagaajiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meeshan aan hadda taaganahay masaajidkan gadaashayda asaaska uu muuqdo jamaa xaafada masaajid ay ku dukadaan jumcada iyo jumacaadka midna ma haystaan anigana magaaladan afarteeda dhinac waan garanayaa meesha masaajid u baahan iyo meesha masaajid u baahnayn marka walaalayaal ilaahay waxa inkaga baryaynaa jawaab degdeg ah oo qalbiga noo qaboojisa maxaa yeelay qofka إلهي قرآن كيس وحكويري إن أول بيت وضع للناس للذي ببك وحن قصة ختمة بإذن الله تعالى أرنتا سايد إن النووك الميسان مال كان بروانا لويدينا وأدنا كتجيسا كرفان عضات كقاضنيسا ما أنت قيامنا وهاللو صوبحين دونا أديكو غلف قبا أو قاون أو كابلانه وحكوسو هوبايا أو كوسو جرجارايا أو UN كون نقنايا وحويان واحد ما أنت هرمر صدت قفك هدور دينتنا عمل كيس وجوءيا إلا من ثلاث بوداي النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة وحكمده مساجد هدي أدست أو حر وحلو برايا سيد هذا الشيخ الجرب كي يجمدك تتاجن ومعلم كتابك وهو أخريا تفسيرك وهو أخريا بخاري وهو أخريا مسلمك وهو أخريا أمهات الستة محاضرين مسلسلة ما يشاس مركو حينقون يسا منبع عيل بترول هي دينته مارتاي كسو برقتا marka walaalahay muslimiinta ilaahay waxaan ugu baryayaa umada nabi maxamed ku khayrka badnaa allah in ka dhigo ku nabiga maartay diriskiisa allah in ka dhigo ku arshur rahmaan harsada allah in ka dhigo meel kasta oo joogtaan dal iyo dibidba saddex bari ka dambo masaajidkan waxa lagu qiyaasay 3 milyan iyo 700 waana ka badan karaa waana ka yaraan karaa sida darteed walaalayaal gargaarkiina ayaan codsanaynaa inamal mu'minuuna ikhwa weeyaan muslimiintu way isku xiran yihiin qubuurta iyo masaajidyada muslimiinta waxay u yihiin shirkad masaajidkan asaaskiisa aan soo bilawnay oo u jeedaan isxilqaamkii reer Bangal ayaa maaragtaa intan aan ku soo gaarsiinay sida aad hadda u jeedaan kareetooyinka hadda ciida dejinayo waa dad sadaqaysanaya kareetadooda dameerka intay wateen dhahay masjidkan kaga qayb qaadanayna laakiin waxay awood u haynin inay ismiid gadaan inay block dhagax gadaan inay maaragtaa waxyaabihii masjidka uu u baahnaa ay soo dhameystiraan markii sida darteed walaalayaal anaga ka reer Bangal ahaan waan isxilqaanay laakiin walaalaheennii kale oo naga maqnaa ayaan isku haleyntooda darteedan masjidkan u bilawnay annagoonan u haynin 3 milyan iyo 700 kun lacag lagu qiyaasay ayaan iska bilaabanay isku haleyn aan ka qabno dadka khayrka jecel ee magaalada gudaheeda iyo dibaddeedaba ku nool inay ka faa'iideysanayaan annagoo aaminsan kalsoonida darteedan u bilawnay waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa inuu kalsoonida noo dhabeeyo oo maaragta idinkan aad ka soo jawaabtaan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh